السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسلام يا دمان أصحاب تكوت حان channel كأستاذ سونامي يلو فيسبوك كسونامي كيس بوس. وحان شرحنا ما تدويلا على chemistry grade 9 أو مركز مال مهم يعني chemistry مهم. عمل ليه هذا how to name chemical compounds. سيدا الله مقعاوة يعني أنا يعني اسكو ديسك كيميكي أو الله مقعاوة فورمولا. إن شاء الله أدويلا هذا وحان شرحنا كلية ستة شرعي أنا سلاي هاي هدي أرضي مدوخة إن شاء الله سيدا الله مقعاوة يعني compounds كا وفهم دونا. أوكي كاميرا وحان كريم هذا علم يا مسيس سوسانا إن إن النسوء قال مقال كيكا كشحين يسا سبورنا مشارحة دونا 10 كاتو الله هذا سبسكرايب يا لايك وحي أنا وعديك. Okay. How to name chemical compound from its formula. وصل لو مقعاوة اسكو كيميكي لو أنا مقعاوة formula هذا. That's the one rule one شرعي كوبا. How if a compound contains only two elements. هذه اسكو ديسكا وككوية هكلية لما عرية وككوية هاي such that one of them is metal. هذه لوضع عرية وككوية هاي متكود ومتلي هاي ومتكود بري هاي معنا سمعنا يا the metal is named first متكبرتها أيام مركها لما عاوها عندها ناي هذه اسكو ديسكا وككوية هاي لما عرية كلية لوضع عرية متكود ويا هاي بري متكبرتها أيام مركها لما عاوها أوكي كدين محل سميني يا مركا نن ميتاليك بارتي خيرتا أو نن ميتال كأ أو برماها أنا is given a suffix I وحلسينا يا suffix أو I أحلسينا يا كذا رجع I أحلسينا يا the ending دمان كان لغسينا يا محل سميني يا عمري حدي isku dhiska uu ka kooban yahay laba curiye labada curiye mid kamid ah uu metal yahay waxa la sameeyaa marka hore waxa la magacaabayaa mid ka metalka ayaa la magacaabayaa tan labaad nan metallic party khaybta oo nan metalka ah oo birmaha oo birta aan ahayna waxa la siinayaa balili gadaal gale ay ah baa la daraaya yani curiye marka hore saa u taqaana oo akhrinaysaa way curiyaha kale ee ku xirmayna markaan falgal ku jiraawo ay baa la siinayaa salaan curiyaha oxygen taqaanay hadduu falgal galo oxide ay noqonayaa chlorine chloride bay noqonaysaa nitrogen nitride bay noqonaysaa. Okay, examples tusaalooyin aan marka waxaa inoo qoran sodium waa bir sodium waxaa lagu xiray marka chlorine sodium إيه واحد اسمه حري كلورين أنا سويت لك هذا في جسمي كلورين سامي اسمه حري سيلو أخيرا يا مركب مرة عليها برتة مجعة على هاي صوديوم على هاي صوديوم كلورايد صوديوم كلورايد اللي صوديوم كلورايد تنلبان ما محي وحنا آخر المغنيسيوم إيه وحنا آخر النيترايل سيلا آخرنا يا مركا ربيت آخري على ناي مغنيسيوم نيترايت مغنيسيوم نيترايت again مغنيسيوم نيترايت أوكي ماشي مسألة ستحات وحواي ألومنيوم ألومنيوم إيه وحيا له أكسجين على سمين يا مركا على يا مركا ألومنيوم أوكي أما ألومنيوم عفوا وألومنيوم محاكو حرام أكسجين ألومنيوم أوكسايد أما ألومنيوم أوكسايد اللي okay sodium chloride magnesium nitride aluminum oxide أما aluminum oxide ماشي حاجة بحنا شرعي كواد الإما على كلانتو اسكو ديسك كوان لبع عري
labada cunayna midkood bir uu yahay marka hore midka birta ah magaco kadib qaybta kale oo non metallic ah oo aan birta ahayn waxaad ku dartaa galaha ay ku darweeyaan okay waxaan ka hadalnay qaybta waa sharciga koowaad okay raskan taadana another rule sharciga labaad rule 2 wuxuu leeyahay the compound is containing two non-metals markaan waa maxay isku dhiska markaan wuxuu ka kooban yahay laba birma oo ka kooban yahay wuxuu kooban yahay two non-metals laba birma ayuu ka kooban yahay maxaa yiri marka name waa la magacaabaya by using ayadoo la isticmaalayo Greek prefix la isticmaalaya ya horkale Greek ah baa la isticmaalaya like sida waxaa la fiirinaa marka curiyaha dambe waxaa la fiirinaa tirada uu wato curiyaha koowaad maaha curiyaha labaad tiradiisa la fiirinaa tusaale ahaan carbon iyo oxygen ayaa waxaa leeyahay carbonta caadi ah loo soo akhrinayaa oxygen-ta marka waxaa leeyahay how many meeqa oxygen-ta hadday hal tahay waxaa leeyahay monoxide laba waxaa leeyahay dioxide saddex waxaa leeyahay trioxide afarna waxaa leeyahay tetraoxide shanna waxaa leeyahay pentaoxide saasaa lagu wadaa marka ilaa iyo noona deeka ilaa 10 laga gaaro saa lagu wadaa okay marka meeshan waxaa muhiim ah ustaadi inaad fahanto inaad kala garato curiyaasha birta ah iyo kuwa birmaahayaasha ah si aad ku go'aamiso magacaabitaan sax ah si aad ku samayso okay using waxaa la isticmaalayaa mono di tri tetra and so on baa la isticmaalayaa beri which denotes kaas oo marka lagu tilmaamayo the number of atoms present in a compound waxaa lagu tilmaamayaa tirada atom ee ku jirta isku dhiska ayaa lagu magacaabayaa meeshaan marka waxaa noo qoran phosphor ayaa noo qoran maxaa raacay marka phosphor waxaa isku dhigay chlorine soo maaha 5 ah meeshaan taalo maxaa leeyahay marka phosphorus intaadan chlorine gaarin ka hor tirada chlorine ta sheegaysa phosphorus pentachloride pentachloride because tirada 5 ah waxaa la yiraahdaa benta okay meeshaan waxaa noo qoran carbon iyo waxaa noo qoran oxygen okay carbonta marka waa akhrinayba meeshaan oxygen-ta taala waa imisa hal waaye hal waxaa la yidhaahdaa mono maxaa leeyahay marka carbon monoxide hadday laba naqatan maxaa leeyahay dioxide saddexay naqatay trioxide waa carbon monoxide carbon dioxide carbon trioxide meeshaan maxaa yaala nitrogen baa taala nitrogen waxaa lagu daray oxygen oo saddex ah maxaa la sameynaya marka nitrogen waa la akrinaya oxygen taadan gaarin ka hor tirada ay wada qaybisa saddex bay wadataa nitrogen trioxide baa leeyahay trioxide sharciga labaadna wuxuu yahay waa labada metal labada waxaa la sameynaya marka kan hore elementiga hore caadi magacaasa oo taqaanay elementiga labaadna waxaad fiirisaa numberka uu wato adoo marka isticmaalaya briefixka oo marka Greek prefix oo isticmaalaya mono di tri oo isticmaalaya okay sharciga ugu dambeeya marka rule 3 sharciga saddexaad marka uu ka duwan yahay sidoo hore sharciga compound containing 3 elements aliri waa isla eg isku dhis oo ka kooban saddex molecule saddexdood mid ka mid ah oxygen ay tahay oxygen-ta marka waxaa laga magacaabayaa baarlamaanka suffix baa laga magacaabayaa waxaa laga magacaabayaa suffix oo markaas A laga magacaabayaa weeyaan at the end dhammaadka la gelinaya gadaal la gelinaya A provided there is only one such compound hal nooc oo isku dhis noocaan oo kala hal nooc ayaa ka jirta marka sida inta waxaa loo qoran sodium meeshaan waxaa qoran carbon iyo saddex oxygen maxaa leeyahay marka sodium carbonate Allah akhme CO3 marka say maado waa carbonate okay meeshaan maxaa loo yaala calcium baa noo taala calcium carbonate
calcium carbonate. Okay, if there are two compounds haddii marka laba isku dhis ay jirto, the one with the more oxygen is named the suffix A. midka oxygen-ta badan ayaa markaas loo isticmaalayaa gadaal-galaha A baa la siinayaa. tanna waxaa la samaynayaa waxaa la fiirinayaa tirada oxygen-ta. hadda waxaa loo fiirinayaa marka oxygen-ta yar na waxaa la siinayaa 8, oxygen-ta badanna waxaa la siinayaa 8. Okay, oxygen-ta marka yaraanteeda iyo haddii tusaale ahaan potassium iyo chlorine ay tahay oo kale waxaa la fiirinayaa tirada ugu badan waxay noqonaysaa 4 oxygen. haddii 4 oxygen ay imaado waxaa waaye 8 ah meesha taala. haddii 3 ay imaadana waxaa la leeyahay waxaa loo fiirinaa marka 3 ma badna teeda kale mana yara oo yaraantii waa 1 oxygen. haddii 1 ay tahay iyo 2 iyo 3 iyo 4 baa marka. haddii ay tahay eber oo 1 oxygen kaliya meesha ay taala waa chlorine oo ku xiran tahay oxygen ay ku xiran tahay aydan meesha laga rabaa. hadday 2 tahayna 8 3na 8 baa la isticmaalayaa marka. Okay, maxaa la samaynayaa marka? waxaa la samaynayaa haddii ay dhalato hypo aa loo isticmaalaya. haddii oxygen ay 1 tahay hypo aa keenina aan ka hormarinayna macnaha. haddii ay 4 oxygen taalan waxaan samaynaynaa ber aan isticmaalayna. وإما كوا كلا كلورايد الكلوريد هي هو الاستعمال لنا لغة كلا. أوكي. أوكي. واكل مركب. إن ماشي أنا وصفه سيارة أكثر. بوتاسيوم أو لكم على الكلوريد. كلورايد marka meeshaan waxa yaal waxay tahay walow oxygen marka waa yarta oxygen-ta maxaa leeyahay marka tan oo kale waxaan akhrineynaa potassium hypochlorite because that's less oxygen. haddii ay timaado potassium oo 2 wadatan waxaan leenahay chloride. potassium chloride because of no less kina markaa way ka soo baxday more waliba aysan gaarin. Okay, hadday 3 naqatana waxaan leenahay marka potassium chlorate aan leeyahay because of 2 way soo dhaaftay 1na ma ahan 4na ma aysan gaarin. Okay, haddii 4 ay naqato maxaan leeyahay markaan way badatay marka. haddii 4 ay gaarto oxygen-ta way badatay maxaa la isticmaalayaa marka ber baa la isticmaalayaa. ber marka la isticmaalo gadaale marka la qorayo chlorine-tana chlorate ee gelinaya. maxaa leeyahay marka potassium ber aan isticmaalo because of more oxygen. ber chlorate ee leeyahay. marka meeshaan iska fiiriyaysan kaanahan chloride waxaa qaadanaynaa potassium ber chlorate ee leeyahay. Okay, marka and how to name chemical compounds next episode of Marina inshallah do it and sidoo kale how to name acid and base ila inshallah ashkara ka diyaaray ashkaas daawo marka qaybtan acid iyo base iyagu aad anfacaya qolada markay form 3 aad anfacaya form 3-yada maadaama dadka ugu horeeyo uu yahay acid and base. marka akhrinta way fududaanaysaa haddii qofku form 3 ah uu fahmo sida loo magacaabo acidka iyo laba base-ka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo dhegaysigiina. kaamirada waxaa iga caawiyey Mrs. Susana Leila Maxamed Susana anigu Sunaamiana cashirka ayaan sharxayay dugsiga Saala Primary and Secondary School ayaan aalaba joogaa. intaan kulmana cashirkiis waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaanada.